مسؤولين سرسرة ee maanta wasiirku kula yeeshay kulanka xafiiskiisa ayaa waxa hogaaminayay agaasimaha guud ee BBC World u qaabilsan qaaradda Afrika Mr. Solomon Mingora iyo madaxa ahlaamaha af Soomaaliga iyo Sawaaxiliga Mrs. Carolina Claudia ugu horreyn wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Ismaan Cabdilaahi Saxarjid Cadaani ayaa faahfaahin ka bixiyay safar uu kaga soo laabtay gobolka Sanaag isaga iyo wafdi uu hogaaminayo isagoo intaasi kadibna ka warbixiyay ujeedada wafdigan ka socda BBC-da oo uu sheegay inay tahay sidii ay jawaab uga bixin lahaayeen cabashadii ay Somaliland hore ay ugu gudbisay madaxda sarsare ee BBC World ee ahayd in aanay laanta af Soomaaliga ee BBC-du aanay dhex ka ahayn wararka iyo barnaamijyada ay ka diyaarso Somaliland saaka waraysan saaka 6 baan soo galay anagoo team ah oo ka nimi waxaan ku dhahdaa gobolka Sanaag shantii sano soo baxnay saaka 6 baan soo galay muddo 8 cishaan waan ku maqnay waxyaabahan ku soo caraynayna waxa kamid ah marka shaqada wasaaradda laga saaro waxaanu ballan lahayn oo noo imanayay Suleiman Magora oo ah regional director ama ninka gobolada Afrika oo dhan BBC-da oo qaabilsan oo ah halkan maxaan ku raadayay midagteeda ninka fadhiya iyo Caroline Claudia oo iyaduna maxaan ku raadayay Nairobi base ku ah qaybta Soomaaliga iyo Sawaaxiliga waxaana u yimaadeen oo madaxda waaweyn loo soo diray BBC-du ay isla garteen cabashadii aan u gudbinay ee ku saabsanayd in aanay BBC-du dhex ka ahayn arrimaha Soomaalida inta badan ay garab siiso ama dhinaca Soomaaliya oo ka baxsan wixii maxaan ku rahdaa wariyaasha lagu yaqaanay ama BBC-da lagu yaqaanay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland Ismaan Cabdilaahi Saxarjid Cadaani ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qodobada ay isla afgarteen mas'uuliyiintan iyo wixii ay ka wada hadleen waxaan u sheegnay warqadeedu daaranay in aan dhinac u jeedo doodaha la qabta ama warka BBC-da ka baxaaba marka anagoo tixgelinayna xiriirka aanu leenahay ee dheeraa ilaa iyo kontonadii soo socday aanu la leenahay dalka Britain iyo BBC-daba waxaanu ka wada hadlaynaa aanu isla garanay inaanu wixii jira maxaan ku dhahdaa cabashooyinana laga hawlgalo oo la dhameeyo mustaqbalkana si cadaalada oo dhinacna aan cid la saarayna dhexdhexaadnimo ah maxaan ku dhahdaa loo sii daayo warka BBC-da iyo doodaha maxaan ku dhahdaa BBC-du qabato waxaanu kaloo aanu doonaynaa in maxaan ku dhahdaa xiriirkaas uu noqdo oo BBC-du sidii markeedii horeba ay wadankan loogu soo dhaweyn jiray maxaan ku dhahdaa loogu soo dhaweeyo maxaan ku dhahdaa wixii shaqo ay ka qabanayaan noocay doontana ha noqotee iyagoo soo maraya waxa u yaala immigration-ka iyo wasaaradda warfaafinta inay maxaan ku dhahdaa hawlahooda ay sameeyaan annaguna aanu ku faraxsannahay inaanu soo maxaan ku dhahdaa hawsha kala shaqeyno hadday film la duubayo tahay iyo hadday documentary kala tahay ama any documentary waxa la waxay doontaa ha noqotee iyo hadday war tahayba waxa weeye waxaan isla garanay Suleiman in wixii jira waxna way sheegeen oo khaladaad waxna waxay yiraahdeen qaybna waxa ka jiraan bay yiraahdeen qaybna waxba maxaan ku dhahdaa sax oo waxa la raacay dariiqii loo mariyay BBC-du iyo protocolkii ay lahayd marka waxaanu isla garanay kuwa ay garteen in khaladaad ku jiraan inay saxaan kuwa kalena inay dib loo eego oo la isla fahmo hawshu yani inay intan ka balaaran tahay wixii aan isla garanayna inay saxaan waxa kale aan isla garanay in dib loo eego oo maxaan ku dhahdaa labada iyadu baanu ka wada shaqeyno maxaan ku dhahdaa isfahan iyo shaqaan ku wada shaqeyno waxaa soo ay u imanayaan oo isaguna jira oo ay sameynayaan TV cusub oo ay u doonayaan inaan qof cameraman iyo qof reporter oo cusub
oo TV-gaas maxaan ku dhahay Soomaaliland ay sameynayaan iyagana waxaanu kala hadlo dawlad ahaan aanu sheegnay inaanu TV-ga doonayno inaanu qandaraas la galno BBC-da mar hadduu guryahayaga oo maxaan ku dhahdaa soo galay af Soomaaliland oo ku hadlayo ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda warfaafintu waxa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan mas'uuliyiinta kala duwan ee BBC-da kuwa dalka jooga iyo kuwa caalamiga ahba mustaqbalka dhow sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu sheegay anaguna aan uga mas'uulka ahay waxaan doonayaa BBC-da u sheegna saxaafaddu inay mid xor tahay Soomaaliland weligeed xor ay ahayd si alla sidaan ula shaqeyn karnaa aan ula shaqeynayno oo labadayadaba xiriirkayaga maxaan ku dhahdaa isku kay xiray Sulaymaan iyo Caroline mar labaad waan idin soo dhaweynayaa halkan waxaad ogaataan halkan aan fadhiyo wasiir iyo shaqaale wasaaraddan ay leedahay iyo saaxiibkii Axmed Xuseen Cige iyo Gaas oo halkan jooga inuu dhamaanteed xiriir wanaagsan inaga wada dhaxayn doono mustaqbalka oo aan shaki ku jirin oo aan maxaan ku dhahdaa markaan wax dareenana aanu idiin soo sheegi doono laakiin aad ogaataan ajandaanu leenahay ma jirto integrity-ga BBC-du baanu ilaalinaynaa iyo integrity-ga dadkan iyo dalkan Mrs. Caroline Crowley madaxa afka Sawaaxiliga iyo Soomaaliga ee idaacadda BBC-da ayaa iyana waxa ay dhinaceeda ay ka sheegtay in marka ay cabasha timaado laga fadhiisto si adag looga hadlo isla markaasina halka ay canaanta ku leeyihiin ay qaataan and it's a very rigorous process which we go through when it comes to investigation because we have to log it particular debate of 17th of February. So we had read messages as they were coming in, and it transpires the 4 messages that had come in back to back tended to favor one side. And therefore, when time ran out, we didn't have any accommodation for alternative comments, and that sent that message that this debate might have been biased. Mr. Solomon, agaasimaha guud ee idaacadda BBC World ayaa isaguna dhinaciisa waxa uu ka sheegay in marka dib loo eego doodii u dambeysay ee laanta af Soomaaliga ee idaacadda BBC-da laga sii daayay ay markii dib looga fadhiistay ee la wada eegay ay noqotay mid aan dhexdhexaad ahayn ee dhinac u badatay waqtiga oo koobna iyo hadallada oo badna awgii buu yiri waana meelaha aanu ka garaabayna buu yiri ee qaladkuna uu ka dhacay. If BBC Somali service fails our audiences in Somaliland, it is not because of the Director General or the Director of News or the Director of World Service or the British government or the British people. No, it is because of the Somali service itself. That is where the problem is.